sidee dadka ugu nool yihiin magaalada ugu qabowga badan adduunka? Halkan waa meel fog oo ay adag tahay gaaritaankeed oo ka mid ah Siberia oo ku taala dalka Ruushka. Deegaankan yar waxaa lagu magacaabaa Oymyakon, micnaheedu ayaana noqonaya haradii barafowga. Taasina waxay ugu baxday markii ay heshay in loo aqoonsado halka ugu qabowga badan adduunka. Sidoo kalena waa magaalada ugu qabowga badan dhulka oo ay degan yihiin dad. Heerkulka xilliyada jiilaalka ee magaaladan Oymyakon wuxuu gaaraa in ka hooseysa 40 digrii Celsius, kumana dheeraan haddii aan dhahno in biyaha karkarsan ee halkan yaala ay isku beddelayaan baraf inta lagu guda jiray sakano kooban. Sanadii 1924 ayaa loo diiwaangeliyey magaaladan heerkulkii ugu hooseeyey oo gaaraya 71 digrii Celsius. Waxay ku taallaa magaalada meel ka fog labada cirif ee waqooyi iyo midda koonfureed ee dhulka. Oymyakon waa halka ugu qabowga badan saxaro barafeedka Siberia. Ma jirto cid taariikh badan ka taqaan magaaladan, laakiin sheekooyinka ayaa sheegaya in bilowgii magaaladan ay degeen dad xoolo dhaqato ah oo markii hore ay kaga soo dhumeen xoolo halkan. Intaas wixii ka dambeeyey ayaa la sheegay inay aad uga heleen xaaladda jawi ee halkan nafsad ahaantooda. Si kastoo ay xaqiiqdu noqoto, dadka ku nool magaaladan waa kuwa awooda la qabsiga deegaankooda, ayagoona u dulqaadan kara barafka iyo qabowga daran. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dalalka adduunka isbeddelo cimilooyin oo kala duwan. Nolosha magaaladan yar marka loo fiiriyo si gaar ahna waxay ahayd mid aad u adag, heer ay saamaysay cimilada xun iskuulada, ayagoona ku qasbanaaday in la xiro sababo la xiriira cabsi weyn oo laga qabo in ardayda marka ay soo aadayaan iskuulka uu ku dhaco qabow aad u daran, kadibna ay barafoowaan ilaa ay ka dhintaan. Marka loo yimaado isku socodka baabuurta ee magaaladan, waa in ay wataan darawallada shidaal ku filan wakhtiga oo dhan, mana jira biyo socda magaaladan, waxayna bulshada deegaanka ay keenaan qoryo iyo xaabooyin, kuwaas oo ay suurtagal tahay inay ku shidmaan dabka gudaha guryahooda. Dareero walba oo socda magaaladan waa u suurtagal inuu barafoobo inta lagu guda jiro sakano kooban. Dharka iyo hababka ay ku gaashaantaan qabowga dadka ku nool magaalada Oymyakon waa in ay qaataan jaakado, koofiyado, gacmo gashiyo iyo kabo, kuwaas oo hoos u dhigaya qabowga daran ee jirkooda ku dhici lahaa. Wejiga iyo indhaha dadka ku nool halkan waa sidan, oo waxaa ku dhaco qabowga barafka si ka duwan goobaha kale ee ku yaala Siberia. Oymyakon saddexdii bil waa mid xagaa ah sanad walbo. Dadka ku nool magaaladan waxay gaaraan ku dhawaad 500 oo qof, waxaana lagu tiriyaa magaaladan meel aad u cajiib badan oo ay ka dhacdo dhacdooyin iska soo horjeeda oo cimilooyin ah. Tusaale, waxaad arkaysaa isla qabowga oo jira in uu ka jira dhanka kale deb, kaasi oo la sheegay in uu ka dhasho gaasaska ogolaanaya shidmidda deb ee ku hoos jira barafka hoostiisa. Hase yeeshee waxaa jira hadallo kale oo isla dhexmaraan dadka deegaanka oo u ah ilo dhaxal, taasi oo ah inay ku sheegaan inuu debkan dhaliyo mid ka mid ah bahalada ku nool halkan.